madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka mamnuucay shacabka gobolada waqooyi inay u safraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo sheegay in halkaas ay ka jirto halis amni qatarna ay ku tahay badqabkooda aysan jirin sabab hadda ay u tagi karaan. sidoo kale waxa uu sheegay in Muqdisho xukuumadda ka jirta colaadin badan ay ku hayso maamulka gobolada waqooyi. waxaa khudbadu jeediyay Muuse Biixi uu ku sheegay in xukuumadda Muqdisho ay cadeysatay isla markaana banaanka ay soo dhigtay iyada iyo dadkeeduna ay muujiyaan nacaybka xaddaafka ah ay u qabaan reer Soomaaliland sida hadalku u dhigay Muuse Biixi waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedu ay aaminsan yihiin in kooxda Al-Shabaab ee maalin kasta qaraxyada iyo weerarada ka geysata gudaha Soomaaliya ay uga dhowdahay maamulka Soomaaliland sida hadalkiisa uu ku yiri. dadka xamar jooga waxay ku leeyihiin shabaabkana laynaya ee qarxinaya ayaa nooga dhow Soomaaliland oo la ictiraafo ayuu yiri Muuse Biixi oo sheegay in xamar ay ka xun tahay wixii ku soo kordhay Soomaaliland amaba tilaabada horumarineed ay qaado. Muuse Biixi sidoo kale waxaa tilaabooyinka ugu dambeeyay ee Muqdisho uu ku tilmaamay kuwa aan caqli gal ahayn isagoona ku dooday in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan inkasta oo caalamku uusan aqoonsanayn. dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa meel adag iska taagtay tilaabooyinka ugu dambeeyay ee dhankiisa Muuse Biixi uu qaaday sida isafgaradka gardarrada ahaa ee uu la galay dowladda Itoobiya kaasi oo dhigaya in 20 kiiloomitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya loo gacan geliyo xukuumadda Addis Ababa. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay diiday tilaabooyin ay qaaday Soomaaliland oo qalqalgelin ay ugu sameysay hawada Soomaaliya iyadoo gabi ahaanba ka wareegtay systemkii ay isticmaali jirtay maamulka hawadana loo adeegsan jiray ee Soomaaliland qaybta ay ka ahayd diyaaradaha ka degaya caasimadda Soomaaliland iyo dhammaan magaalooyinka kale ee maamulka gobolada waqooyina. waxaa hadda amarkoodu si toos uga baxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo wax kaalin ah aysan ku lahayn maamulka madaxweyne Biixi oo kaliya loo sheegay haddii dan ay u tahay diyaaradahaas inay ka shaqeeyaan deegaanada maamulkooda haddii kale oo ay diidaanna dowladda federaalku gabi ahaanba ay joojin doonto. shacabka reer Soomaaliland ayaa si weyn dhankooda uga carooday tilaabooyinka madaxweyne Biixi uu qaaday ee ugu horeyso in 20 kiiloomitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya uu siiyo dowladda Itoobiya waana mid ka mid ah kacdoonada ugu xooggan ee xilligan gudaha deegaanada maamulkiisu uu ka wajahayo iyadoo shacab fara badan ay aadeen dhinaca gobolka Awdal si ay u xoojiyaan ciidamada dadka deegaanka ah hubka qaatay halkaas ugu sugan inay ka difaacaan Lugahaye iyo Saylac Itoobiyaanka la qorsheynayay in la keeno. waxaana abaabulka shacabku cabsi u galiyay maamulka Abiy Ahmed uu hogaamiyo oo markii hore qorsheynayay inay si dhaqso ah u fuliyaan heshiiska ay la galeen Muuse Biixi ciidamada ay ku soo daabulaan gobolada waqooyi. hadda waxa xaaladdu mar kale ay muujinaysaa in halis ay ka jirto dhankaas kadib markii dowladda Itoobiya ay cadeysatay faragelinta ay ku hayso gudaha siyaasadda Soomaaliya xiriirna ay la bilowday maamulka Puntland. sidoo kalena ay soo baxeen xogo tibaaxaya in abaabul ciidan Abiy Ahmed gudaha deegaanada maamulkiisu uu ka wado si uu u fuliyo heshiiska uu la galay madaxweynaha maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi.